السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسن داوديال ومركلة يموقع عصوب حد كداوان إيسان ورباهنتا warar dheeraad ah ayaan ka helaynaa magaalada caasimadda ee Muqdisho shir xasaasi ah oo tan iyo xalay ka socday guriga Sheekh Shariif Sheekh Ahmed siyaasiyiinta ugu miisaanka culus beesha hawiye ayaa shirkaasi isugu tagay waxaana looga arinsanayaa arrimo xasaasi ah oo ay qayb ka yihiin qorshaha hubka dhigista ee uu la damacsan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah dadka isaga mucaaradka ku ah oo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed uu ugu horeeyo ilaa iminka shirkan maxaan ka ogsoonahay natiijada laga filan karo samxay tahay muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigaynaa iyo jawiga guud ee hadalhaynta magaalada Muqdisho ka taagan muuqaalkan ayaan ku eegaynaa mar kale soo dhawaada waxaan ugu dagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarnay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho mashquul xoogan ayaa ka jiray tan iyo xalay waxaana wararku ay sheegayaan in mashquulkan uu salka ku hayo arrimo la xiriira in Sheekh Shariif Sheekh Ahmed uu isugu yeeray siyaasiyiin horey xilal u soo qabtay iyo kuwa hadda xilal haya iyo waliba dad miisaan siyaasadeed leh oo ganacsato ay ku jiraan iyaguna oo ka arinsanaya arrimaha ku soo kordhay xaaladda siyaasadeed ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa waxa la warinayaa in shirka uu qabtay salka uu ku hayo arrimaha la xiriira dhinaca hubka dhigista uu damacsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidii looga falcelin lahaa dabcan marka la soo hadal qaado siyaasiyiinta beesha hawiye ee magaalada Muqdisho jooga waxa ugu hub badan Sheekh Shariif Sheekh Ahmed rag uu ugu horeeyo isla markaana raggan ayuu doonayaa inuu baalaha ka rifo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si hadhow markii doorashada buuq ay gaarto ay macquul u noqoto in wax badbaado qaran la yiraahdo aysan soo galin magaalada Muqdisho si la mid ah sidii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo culays loo saaray ila wareeto aad uga agdhow guriga Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa waxay soo sheegeen in shirka ay ka qayb galeen wasiiro hore xildhibaano hadda baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan gudoomiyaal hore u soo maray gobolka Banaadir iyo waliba qaar ka mid ah gobolada dalka isla markaana ganacsato ay goobjoog ahaayeen waxaana looga arinsanayay haddii la soo weeraro Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ama la soo weeraro siyaasiyiinta kale ee beesha hawiye ee hubka ku haysta magaalada Muqdisho sida looga falcelin lahaa warar hoose ayaa waxay sheegayaan in falcelinta la isku raaci doono sida looga falcelin doono iyo in ay heegan gali doonaan dhammaan siyaasiyiinta reer Muqdisho ee weerarka lagu soo yahay siyaasiyiintan waxay haystaan hub aad u tiro badan waxay haystaan ciidan maleeshiyada oo iyagu ay biishaan oo dawladda aysan u biilin oo aad iyaguna u tiro badan waxaana la sheegayaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu digniintii dhawaan uu soo diray ay si dhab u qaateen siyaasiyiinta malaha Sheekh Shariif Sheekh Ahmed wuxuu ka dhaadhicin doonaa guud ahaanba siyaasiyiinta beesha hawiye inuu isdifaaci doono oo uu dagaalami doono haddii la soo weeraro gurigiisa dadka sida gaar ahaaneed isha loogu hayo sidoo kale waxa kamid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah siyaasiyiinta hubka ku haysta Muqdisho sidoo kale daawadayaal waxaa jira siyaasiyiin aad u miisaan culus oo iyaguna hub aad u tiro badan ku haysta Muqdisho waxaana kamid ah Senator Muuse Suudi Yalaxow in la weerari doono macda laakiin dadku waxay leeyihiin awood uu ku weeraro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Muuse Suudi Yalaxow ma laha laakiin wuxuu weerari doonaa dadka siyaasad ahaan ay hayaan isaga sida Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waa saddexda nin ee aadka isha loogu hayo dhaqdhaqaaqooda isla markaana hubka iyo ciidanka ay haystaan heegan buuxa galiyay habeen kastana iska waardiyeynaya in weerar gaadma dawladda ay ku soo qaado جمعية إنه كسو قدمني جمعيه كهريي مدعوينها جمهورية فدرالك الصومالية أيها كل مكان الدوان قبطي كواسي وكل هاي حير إلالينتو وإن أي جران ورقادة ويرسة لغو ويرري كرو قوري كستو أهو بشرع در ويالو تاسيو معنى هيدو أي تهي إن لحلالي صنيو ويرر كستو أو لقادو إنو نقونيو ميت شرعية أو أي شرعيات وهيستان عيدان كويرر كفلينية شخصيات دورة أيها فلين دونا ويرردا للد معسين هاي سياسيين تا hubka dhigista loogu magac daray waxaana kamid ah Asadiano taliyaha cusub ee booliiska Soomaaliya taliyaha booliiska gobolka Banaadir Macalin Mahdi iyo shakhsiyaad kale oo uu kamid yahay taliyaha ku xigeenka booliiska Soomaaliya Kaniif oo isaguna ka soo jeeda beesha Habargidir ee Hawiye markii Farmaajo uu joogay dhowr jeer weerar noocaas oo kala way dhaceen inkastoo hubka dhigis aysan ahayn haddana meelaha Farmaajo weerarka ay ku fulinaysa dawladdiisa waxay ahaayeen meel la tuhmayay in ajaanib ay ku lug leeyihiin oo wax dawladda ka dhan ah laga diyaarinayo
tusaalahaan weerarkii lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Abshakuur Warsame waxaa dawladdu ay tiri halkaas lacag imaaraadka ay keeneen ayaa taalay dalka ayaa lagu burburin rabay laakiin tan waxay tahay hubka aad haysato ayaan u soconaa mana ka laabanin ilaa aad bixiso ama anagana dilaysa ama adigan ku dilaynaa wax ka dhaxeeya malaha waana xaalad halis ah oo u muuqata in khatarteeda ay leedahay haddaba daawadayaal baraaruga siyaasiyiinta magaalada Muqdisho jooga ee hubkooda ay ku difaacanayaan oo sii xoogeystay ayaa sidoo kale lagu qeexayaa in uu salka ku hayo in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aysan ka ogolaanin in waxa uu doono oo kaliya magaalada Muqdisho ay ka shaqeeyaan qorshahan hubka dhigista dhowr jeer ay dawladda tallaabo u qaadi gaartay laakiin waa la diiday sababtoo ah dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay aad uga baqday in kacdoon degdeg uu ku bilowdo inkastoo haddaba isla qorshahan kacdoon uu ka socdo oo dad badan oo reer Muqdisho ay diidan yihiin in hubka dhigis lagu sameeyo sababtoo ah beelihii Soomaaliyeed wali isma aaminsana siyaasiyiinta Soomaaliyeed wali isma aaminsana ganacsatada Soomaaliyeedna wali isma aaminsana marka laga soo tago siyaasiyiintan hubka tirada badan haysta waxa jira daawadayaal ganacsato aad u tiro badan oo iyaguna hub aad ciidas uga badan haysta oo marka aad fiiriso iyaguna hubkaasi naftooda iyo ganacsigooda ku ilaashada kuwaasi oo haddii hubka dhigis lagu sameeyo mas'uuliyadeeda inaysan qaadi karin dawladda Soomaaliya loo maleynayo xagga ammaankooda xaaladahan adag ee xilligan ka jira magaalada caasimadda ee Muqdisho shirkan Sheekh Shariif Sheekh Axmed gurigiisa ka socda waxa la filayaa inuu sii ballaarto oo qaybaha kala duwan ee reer Muqdisho gaar ahaan hadii si kale aan u dhahno beesha hawiye uu isugu yeero qaybahooda kala duwan markastana uu ogeysiyo xaaladda iyo halka ay marayso iyo talaabada uu qaadi doono Sheekh Shariif Sheekh Axmed hadii gurigiisa lagu soo weeraro oo hubkiisa si toos ah oo aan gabasho lahayn loogu gardhigto inuu soo dhiibo ama dagaal halkaas uu ka dhici karo Sheekh Shariif waxa uu kamid yahay madaxtaagyada ugu waaweyn ee xilligan ka soo horjeeda qaabka uu wax ku wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kamid yahay shakhsiyaadka ugu horeeya ee dhaliisha la daba taagan dawladda shakhsiyaadka ugu horeeya ee qiraya in dawladda ay fashilantay oo hal guuto oo ciidan oo dagaalami karto al-shabaab ka hortagi karta aysan jirin ciidankiina gacanta loo geliyay dad aan mudneen oo ay maamulayaan waxaana sidoo kale arintan daawadayaal marka aynu dhinaca kale ka eegno la leeyahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu ka sii fikirayaa doorashada in waqtigeeda in la qabto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqo una cadeeyo wax la yiraahdo in teendhada laga leexan doono oo doorasho qof iyo cod ah nidaam hadda loo qaban karo aysan jirin xaaladda cakiran ee ka soo cusboonaanaysa magaalada Muqdisho waxay tahay in siyaasiyiinta hubeysan ay heegan galaan dawladda Soomaaliya ay heegan ugu jirto inay weerarto siyaasiyiintaasi isla markaana la isku dayo in hubka dhigis rasmi ah lagu sameeyo haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qorshahan uu qaado laba mid ay noqonaysaa ama amniga Muqdisho ayaa faraha ka baxaya ama waxa laga adkaanayaa nimankan siyaasiyiinta ah ee hubka tirada badan haysta inkastoo ay adkaan doonto in siyaasiyiintan si fudud looga adkaado sababtoo ah muddo ka badan 20 sano ay qaarkood hubka haystaan hubkaas wuxuu u badan yahay hub iyagu ay soo iibsadeen beelahooda ay ka heleen iyo kii laga dhaxlay dawladii dhexe Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay marka way adag tahay la leeyahay in siyaasi hubeysan oo reerkiisa ku dhex jira oo 100 wiil ila 200 oo wiil heli kara oo hubeysan oo qoryo waaweyn wata si fudud looga dhaadhiciyo hubkaaga soo dhiib wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaan ku eegi doonaa waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan mahadsanideen